Ustaz Xasan soo dhow hadda aan ku arkaya. Assalaamu calaykum. وعليكم السلام وكحوم هاي علة فرسمة قبتي إن شاء الله نو بلا مرك برنامج أديك هذا الكبتي أنا كان أحكي Dib ma lahan. Ustaz Xasan soo dhow marka hore yani kaliya waxaan bixinay introduction-ka programka waxaan sheegnay inuu insha Allah hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idmo oo inoo noqon doono mid naxtaane ah ama usbuuc ah yan barnaamijyo kala duwan baan wadnaa ka tahay Inspire Ahaan platformkaas oo isugu jira intooda badan hadafkoodu yahay wacyigelin iyo baahinta aqoonta inaan baahino intaas ka sokow marka hore waxaan rabaa in introduction yar ka bixiyo martideena caawa sharafta leh Xasan Cabdi Xasan wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada wadanka wax ku soo bartay baajka ku soo dhameeyay laba masterna ka diyaariyay wadanka Turkiga gaar ahaan jaamacadda Istanbul Tijaarad University wuxuu ka diyaariyay aqoonta siyaasadda iyo diraasaadka Afrika caawa mawduucan wuxuu noqon doonaa hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idmo in waqtigeeda kooban aan uga hadalno dawladda iyo shacabka ama bulshada ilaaqaadka ka dhaxeeyo dawladdu waxay tahay sidoo kale bulshadu waxay tahay sida ay tahay inay noqdaan Xasan soo dhaw fadhi tafadal aad iyo aad u maasantahay si gaar ah waxaan ogaadinayaa hawlaha quruxda badan madashan taha Inspires ay wada maalin walba dhammaan waxaan asxaabta iyo dadka kale oo maxaa la yiraahdaa social media ku jiraan waxaan kula talinaynaa inay ku taxanaadaan barnaamijyadeena marka ugu horeysa cinwaanka ah dawladda iyo bulshada waxa waa cinwaan aad u xiiso badan waaye oo si marka loo fiiriyo dhinacna wuxuu noqonayaa isheeg cilmiga bulshada sociology igu galaya dhinacna wuxuu ka yahay isheeg cilmiga siyaasadda iyo maxaa la dhahaa falsafadda marka anagoon aad ugu sii dheeraanaynin si maxaa la yiraahdaa dadka daawadayaasha ah ay si fudud ugu fahmaan markii la yiraahdo bulsho iyo dawlad waxaan dareemi karnaa in oo maxaa la yiraahdaa laba tiir oo bulshada qaababkay u dhisan tahay kamid ah inay tahay laakiin haddii cinwaan inta laga dhigo oo labadii eray hal meel la isugu keeno waxaa qasab noqonaysa in labadaas inaan kala saarno oo waxay kala yihiin oo kale inaan kala sheegno daruuri ay noqonaysaa dawladda haddii aan ku bilowno dadka waxay dhahaan dawladdu waxay matalaysaa xayndaabka siyaasadda ee bulshada ay matalaysaa anigoo raba inaan dawladdii iyo bulshadii kala saaro haddana waxaan ku qasbanahay inaan dhaho dawladda waa xayndaabka siyaasadeed ee bulshada marka kala saaridda oo caadiga ah aaday u dhib badan tahay sidoo kale dawladdu waxay ka dhigan tahay qolada bulshada ka tirsan ee haysata awood yani ee sharci u leh inay awood u isticmaasho qaybaha kale ee bulshada tusaale ahaan macallimiinta ardayda wadaadada shirkadaha kuwaas oo dhan awood ma laha in bulshada qaybaha kala duwan inay xoog u isticmaalaan laakiin cidda keliya oo xoog isticmaali karta waa dawladda waaye dhanka kale bulshada markaa usoo noqono bulshadu isku xirka ama maxaa la yiraahdaa isheeg xiriirada ka dhexeeya waxa waaye xiriir voluntary ah waaye adi markaad bulshada ka tirsan tahay oo kale wax weyn oo ka tirsanaanshahaasi waajib ka dhigaya ma leh laakiin halka dawladda iyo maxaa la yiraahdaa ka tirsanaanshaheeda mas'uuliyaad iyo waajibaadba ay ka dhalanayaan si markaa u fiirisid aniga inaan maxaa la yiraahdaa bulsho Soomaaliyeed ka tirsanahay oo kale wax gooniya hadda maxaa la yiraahdaa ay oo xoog ay dusha iga saaraysa ma leh yani xeerar gooniyahan i qabanayo ma leh laakiin aniga inaan dawladda Soomaaliyeed ka tirsanahay oo kale waxaa ka dhalanaya meeshaas waxa la yiraahdaa citizenship inaan muwaadin ah ayaa ka dhalanaysa markaan muwaadin noqdo oo kale dawladdii xuquuqan ku yeelanaya iyadana waajibaad ay dusha iga soo saaraysa canshuur inaan bixiyaa layga rabaa maxaa la yiraahdaa shay wadanka inaan ilaaliyaa layga rabaa dawladaha qaarkood inaad maxaa la yiraahdaa askar xoog ku noqotid sida Turkiga oo kale in qof walba muwaadin walba oo Turkiga ah marka laga reebo duruufo yar oo gaar ah inuu maxaa la yiraahdaa wadankiisa social service qaarkood saasay dhahaan laga rabaa inuu wadankiisa u adeegaa laga rabaa xilligiisa yaad barreeyay way jiri jirtay marka bulshada dhexdeeda xeerarka ka jira ama maxaa la yiraahdaa ma ahan kuwa la enforce gareeya ma aha ani haddaan bulshada Soomaaliyeed wax iyada ka soo horjeeda haddaan sameeyo kale waa la ceebeynayaa waa la itakoorayaa laakiin maxaa la yiraahdaa ciqaab gaar ah oo bulshada ay fulin karto oo gaar ah ma jirayaan saa daraadeed marka haddii aan rabno inaan maxaa la yiraahdaa bulshada iyo dawladda isku wadno oon kala saarno inaan waxaa la rabaa dhahno bulshadu waxaa waaye
qaybaha generaalka ah ee maxaa la yidhahdaa sheeg markaan ka hadlayno waay dowladdana markaan ka hadlayno siyaasadda maamulka awoodda dadka haysta markay tahay waay marka haddii aan dhahno maanta aan ogaano bal bulshada iyo dowladda si ay iskula socon karaan dadka cilmiga siyaasadda iyo ka sheekeeya waxay dhahaan aragtiyooyin badanaa jira oo xiriirka bulshada iyo dowladda u dhexeeya saameeya yani yaa madax noqonaya madaxnimada see lagu noqonaya dowladdu say u samaysmaysa bulshooyinka dowlad say u dhisanayaan marka laga hadlayo dhowr aragtiyaa jirta oo kala duwan qaarkoodaan si kooban usoo qaadanayna tusaale ahaan waxaa jirta aragti la yidhaahdo divine theory macna waxay sheegta aragtida oo ah yani madaxnimada ilaahiga ah in maxaa aragtidana waxay qabtaa in dadka bulshadu madaxda u noqonayso oo dowladda qaybta ka noqonaya dad dhinaca ilaahay laga soo doortay oo kale inay yihiin badanaa aragtidan waxay ku xoog badan tahay ku xoog badnayd aan dhahno boqortooyooyinkii oo maxaa la yidhahdaa sheekeen diinta christianitiga haystay qofka boqorka ah waxaa la dhihi jiray yani waxa waaye isheeg hand of god waa macnaha gacantii ilaahay oo adduunka uu ku maamulayay waaye saasay u arki jireen iyaga keliya kiristaanka keliya kuma koobna yahuuddana saas oo kale waaye annaga markaan maxaa la yidhahdaa isheeg dhaqanka islaamka iyo loo soo galo waa dareemaysaa xoogaha in aragtidaas inkastoo aysan ballaarnayn inay jirto islaamka qofkii ugu horreeyey oo maxaa la yidhahdaa madax u noqda nebiga sal alla alay wasalam uu ahaa dowladdii koobaad oo islaamka isagaa madax u noqday isaga dadka waxay dhihi jireen maxaa la yidhahdaa sheegeen nabiyullah rasuulullah aan dhihi jiray nabiga sal alla alay wasalam markii uu geeriyooday waxaa ka dambeeyey abubakr sidiiq radiallahu canhu abubakr sidiiq dadka waxay ugu yeeri jireen khaliifatu rasuulillah connectionka weli wuu jiraa marka sida aragtidii ay sheegaysa macnaha rasuulkii alle soo dirsaday qofkii adduunka isaga kaga dambeeyey oo booskiisii ku jiray waay cumar radiallahu canhu markii uu noqday khaliifka waxaa la dhihi jiray khaliifatu rasuulillah maadaama ay xoogaha dheeraatay marka amiirulmu'miniin haliska dhahaa la yiri marka cumar aragtidaas way jirtaa qur-aanka markaad dib u fiirisid nebi aadam calayhi salaam markii uu la soo dejinayo markii la abuurayo oo kale innii jaacilun fi lardi khaliifa saasay ahayd macnaha dhulkaan rabaa maxaa la yidhahdaa sheekeen qof khaliif ka noqda in la helo marka aragtida noocaas oo kale way jirtaa waxaa kaloo jira aragtiyo kale oo dhahaya madaxnimadu keliya wax ilaahay kor uu kasoo dooranaya ma aha mararka qaarkood madaxnimadu waxay ku dhisan tahay isirka qofka yani asalkiisa aabbayaashii iyo kale yani paternal theory aragtida awowayaasha aragtidan waxay qabtaa maadaama bulshooyinka ay ka samaysan yihiin waxa la yidhaahdo qoys kastana qofka ugu madaxda ah uu yahay aabe bulshada waxaa madax u noqonaya aabbayaasha aragti noocaas oo kale qabto waay marka hadba marka waxaa la fiirinaa marka aabbayaasha la taransiinaya taha aabihiisa khatar aha ana aabahay khatar aha marka aabbayaasha hadba aabihii ugu fiican wuxuu noqonayaa isheeg madaxda islaamka markaan dib ugu soo noqono kale waa arkaysaa fiiri in aabbayaashu ay qiimo lahaayeen markii oo khulafaa urashidiin ay wada geeriyoodeen oo ay imaatay maxaa la yidhahda ishekeen boqortooyadii ama khilaafadii umawiyiinta waxaa ka dambeeyey khilaafat alcabaasiya dadka cabaasiyiinta waxay u dooranayeen keliya inay maxaa la yidhahda ishek dad wax maamuli karaan ma ahayn cabaasiyiintu reerkooda lala xiriirinayo aabbayaashooda lala xiriirinayo cabaasiyiintu waxay qaraabo dhow aalubeyli ahaayeen iyaga nabigaa lala xiriirinaya marka aragti noocaas dhehaysa way jirtaa aragti aan xoog badnayn laakiin taas ku lifaaqana waxaa jirta dhehaysa keliya aabbayaashu weligeeda xooga lama saari jirin bulshooyinkii oo bidaa'iga ahaa primitiveka ahaa kaalinta aabbaha aad uma caddayn saas daraaddeed iyada keliya lama xoojin karay dhahaya waxaa kaloo jirta aragti kaloo xoog badan oo dhehaysa isheeg dadka ama dowladda dadka ka mid noqonaya madaxtinimada waxaa lagu gaaraa social contract yani heshiis bulsho waaye marka heshiis bulsho markaan leenahay waxaa waaye waxay dhahayaan isheeg dadku waxay ku nool waxaa jirta laba marxaladood marxalad dadka ay ku noolaayeen waxa la yidhahda state of nature si dabiici ay u wada noolaayeen oon xukun jirin dadka isku wada nool yihiin kulligoodii marka waxaa jira nin faylasuuf ingiriisa oo la yidhahdo thomas hobbes wuxuu leeyahay markay dadka state of nature markay ku jireen waa la isdili jiray dadka noloshooda aaday u gaabnayd waa la isdhici jiray rafaadaa lagu jiray marka si rafaadkaas looga baxo in awood la helo waayo dowlad in la helo waayo oo dadka maxaa la yidhahda kala ilaalisa waxaa kaloo jira isna in la yidhahdo locke oo dhahaya
state of nature markay dadku ku noolaayeen ama xaaladda dabiiciga markay ku noolaayeen qasab maaha inay isdilaayaan bulshooyinka kula duwan yihiin qaar nabad u wada noolaana way jiraan oo xeerar iyo wuxuu isaga dhaxaya waxa la yidhahdaa natural law xeerarka dabiiciga ah qof kasta qofka kale inuu ixtiraamo qof kasta sidii isaga uu jecel yahay in loola dhaqmo inuu maxaa la yidhahdaa isaga qofka kale ula dhaqmo saasuu dhahaya ilaa marka dambe la yiri in bulshadu ay si caadi u noolaato iyadoon maamul iyo madaxba jirin dowlad jirin haddii lasoo koobo sida casriga ah yani aad wax oo la gaari kara maaha ayna isdirin oo nidaam la'aan uusan dhicin aan ka dhex macnaha ma waxaa ka wadaa keliya inuu damiirku shaqeeyo oo dadku qof kasta damiirkiisi intuu isticmaalo oo dhibaato lisu geysan oon lisdhicin ma taas ma micnaheedu tahay aad iyo aad ha si fiican alaa u dhahay tusaale ahaan waxay dhahay waxaa jira wax la yidhahda golden rule macnaa xeerka dahabiga ah qof kasta adiga saa jeceshahay in lagula dhaqmo adna dadka ula dhaqan waxaa jira aniga waxaan jeclahay in si fiican leela dhaqmo laakiin waxaa laga yaabaa aniga in damiirkayga uusan ixakamaynin oo dadka kale sidaan aniga rabin inaan ula dhaqmaayo marka waxaa la yidhi dadku xuquuqdoodii dabiiciga ahayd qaar ka mid ah ha ka tanaasulaan dowladda ha u dhiibtaan si amnigoodii iyo waxa uu fiicnaado marka dowladda ina sameeyo dowladda marka aasaas waxaa wax la yidhaahdo social contract heshiis bulsho aa dowladda aasaas u noqonayo kaasaa maxaa la yidhahdaa dowladda lagu soo bilaabaya taariikhda islaamka adigoo raalli ah waxaan aad u jeclaan lahaa inaad yara ifiso social contractga ama heshiiska bulshada iyo dowladda ka dhexeey macnaha siduu yahay sidee la rabaa inuu u dhaco heshiiska ama maxaa laga wadaa yani marka aniga aan caadi u noolahay oon maxaa la yidhahdaa dowladdii waxba jirin waxaan rabaan samayn karaa meeshaan rabaan ka boodi karaa hantida aniga aan leeyahay aniga keliya iskale cid aan mas-uul ka ahay male dowlad markay jirta waxaa waaye anigana waxaa halis ugu jiraa laakiin qof kale inuu hantideedii boobo oo aniga idilo cid iga celinaysa male heshiiska bulsho wuxuu ka dhigan yahay in dowladdu iyo shacabku ay ku heshiiyaan in maxaa la yidhahdaa qofba qofka kale inuu xuquuq u ballan qaado asal ahaan bulshada dhexdeeda oo heshiiskaas ka dhalanaya bulshadu waxay ku heshiinaysaa in qaar xuquuqdeeda ka mid ah inay ka tanaasusho tusaale ahaan canshuur inaad dhiibtid oo kale si dabiiciyan marka loo fiiriyo oo kale wax adiga qasab uga ah ma aha hantidaadii qayb ka mid ah ka tanaasulaysaa marka inaad dhahdid oo kale aniga xuquuqdeydii dabiiciga ahaa qaar ka mid ah waxaan uga tanaasulayaa inaan anigan adeegyo beddelkeeda inaan adeegyo waaweyn oon aniga keligay aan samayn karin inaan helo inaan amni helo heshiiska saas u aha macnaha dadku inay ku wada heshiiyaan in hal qolo go'aamada ugu adag oo bulshada dhexdeeda in la gaaro la rabo in hal qolo ay ka taliso dhammaanteen waa isu wada tegana waxaan leenahay maanta laga bilaabo taha wuxuu noo yahay isheeg qofka oo wixii khilaafaada xalinaayo wixii maxaa la yidhahda caqabada ah noo maareynaya heshiiska bulsho saasuu ka dhigan yahay taariikhda islaamka iyo markii lagu noqdo oo kale nabiga sal alay wasalam markuu madiine u haajiray madiine waxaa deganeed yahuud badan oo aan muslim ahayn waxaa jirta isheeg carab kaloo aan islaam ahaynaa deganeed waxaa isaga kusoo dhaweysay isheeg ansaartii oo muslimka ahayd marka maadaama nebiga uu haystay shakhsiyad weyn qof la aamini karo sharaf leh uu ahaa isagii iyo yahuudii magaalada deganeyd iyo gaaladii kaleba heshiisay galeen wathiiqatulmadiina la yidhahdaa macnaha hadda labadii nin aan kasoo sheekeynayo thomas hobbes iyo john locke iyaga qarnigii 16aad meelahaas 15aaday waxaan ay sheegeen oo dhan soo qoreen laakiin islaamka ka hor oo intuu dad kala duwan oo danahooda kala duwan yihiin oo aragtidooda iyo diimahooda kala duwan yihiin intuu meel isugu keeno wuxuu sameeyey heshiis magaalo ah kaas in magaalada madiine la wada difaaco in dhexdeeda nabad lagu wada noolaado wixii khilaafaad oo dhaca in nebiga maxaa la yidhahda sheekeen lagu kala baxo marka heshiiska aan sheegayna mid noocaas oo kale ah waa aragti kaloo weyn oo jirta waxay tahay aragtidan la yidhahda sheekeen marxism marx wuxuu qabaa isaga dadku mar kasta dhexdooda markay si dabiici ah u nool yihiin loolana ka dhexeeya waxaa loo tartamayaa ilaha dhaqaala loo tartamaya nolosha sida caadiga lagu yaqaano qofa in badan helaya qofna in yar u helaya waxaa laga yaabaa marka si nolosha siday usii socoto modes of production wax la yidhahdo ilaha wax soo saarka dadka bulshada qaar ka mid ah gacantooda inay ku aruurto yani xoogga in bulshada qaarkeedu ay ku ururo markaas kuwii xoogga yeeshay waxay samaynayaan waxay ku tumanayaan kuwii kale oo tabarta darna laga awood badiya isaga wuxuu leeyahay marka dowladdu asal ahaan waxaa waaye aalad dadka eliidka ah nukhbada oo maxaa la yidhahdaa bulshadu ay abuureen waaye si awoodooda ay uga ilaashadaan
jamaahiirta guud dadka guud si ugu ilaashadaan ay sameeyeen marka dadka marksiyiinta oo dabiici oo maxaa la yiraahdaa shay idealka ah iyo dawladdu wax fiican uma arkaan dawladda laftigeeda waxay u arkaan aalad gumaad oo cadaalad darre u arkaan laakiin markii aad fiirisid sida loo dabaqay inkastoo la yiraahdo weli Marx aragtiyihiisa qof si fiican u dabaqay ma jiro laakiin ruushkii markaa fiirisid cagsigii waay meesha bulshada qaar ka mid ah intay ganacsato badan ay xoog yeelan lahaayeen wixii hanti ah oo dhan dawladdii xoog kula wareeg iyada gacanteeda ku jira marka waxa waaye nidaam Marxis oo la qallibay waay oo maxaa la yiraahdaa kala gadis ah ay hadda maxaa la yiraahdaa shaqeen ku shaqeeyaan aan soo koobno marka maadaama oo Instagram aan ku jirro si dadka aysan ugu dheeraanin dawladda iyo bulshada markaan ka fiirinayno hab systematic aan u fiirinaa isku dayana tusaale ahaan marka aan rabo inaan bulshada guud ahaanteeda sawiro waxaan ka samaynayaa xalaqaad wareegyo kala duwan wareegga koowaad oo ugu yar oo dhexda ku jira oo maxaa la yiraahdaa buuda ah waxaa waaye dawladda ku jirta yani dadka madaxda ah wasiirada xildhibaanada maxaa la yiraahdaa garsoorayaasha shaqaalaha waxaas ku jira wareegga koowaad kan ugu yar waaye wareeggaas waxaa jira wareeg kale oo kusii hareeraysan wareeggaas waxaa la lahaa political society bulshada siyaasadeed macnaheed inay iyaga dawladda yihiin kama dhigna siyaasiyiinta ka mid ah mucaarad ha ahaado ama muxaafid ha ahaado waxaa ka mid xisbiyada siyaasadeed ama ururada siyaasadeed ka mid ah kuwa loobiga la yiraahdo oo danaha gaarka ah oo waxyaabaha qaarkood u doodaa ka mid ah iyagaas waxay marka dawladdii wareegga ku xiga iyagaa noqonaya laakiin iyaga dawladdii kama tirsana wareeg iyaga ka sii weyn waxaa ku jira marka ururada bulshada rayidka ahaa ku jira hay-adaha oo maxaa la yiraahdaa samafalka aqoon-yahanada indheergaradka bulshada intaasaa ku jira marka iyagaas waxay maxaa la yiraahdaa sheekeen maxaa la yiraahdaa waxay waardiye gaar ah ka hayaan yani dawladdii iyo maxaa la yiraahdaa xayndaabkii labaad oo siyaasadii waardiye gaar ah ka hayaan intaas waxaa ka sii weyn marka xayndaabkii guud oo bulshada waa marka kusii xigaya marka xayndaabkaas guud ee bulshada een ahayn maxaa la yiraahdaa sheekeen dawladdana ahayn siyaasiyiintana ahayn civil society-gana ahayn waxaan u kala qaadi karnaa waxa la yiraahdo economic society ganacsatada shirkadaha waaweyn dadka maxaa la yiraahdaa hantida leh ka mid ah waxaa sidoo kale ku jirta bulshooyinka aan dhaqaaluhu maamulin qoyska ka mid ah waxaa ka mid ah maxaa la yiraahdaa sheekeen isku imaadyada oo danaha gaarka ah laga leeyahay yani danaha shakhsiyeed laga leeyahay waxaa si u soo hoosgalaya maxaa la dhahaa dadka qaarkood civil society ku daraa laakiin dadka qaarkood ururada oo diimaha oo dantooda aysan siyaasad iyo bulsho gaar ahayn laakiin iyagu diin iyo tacabud iyo maxaa la yiraahdaa sheegeen dantooda tahay marka kuwan dambe xoogaha aad waxay uga fog yihiin xayndaabka siyaasadda iyo ururada bulshada rayidka iyo dhaqaalaha uga fog yihiin marka intaas bulshada caadiga oo la sheegaayo iyo dawladda markii la isku lifaaqaayo intaasay u badan tahay waxaa jiraya marka mar kasta nooc ama koox bulshada ka mid ah oo intii aan soo sheegnay oo dhan mar kasta diidan waxaa ka mid ah waxaan la yiraahdo sheegeen ururadan oo maafiyada oo kale ah oon dawladdiina maxaa la yiraahdaa xeerarkeedii qabanaynin aan ixtiraamaynin bulshadii iyo dhaqamadeedii iyo maxaa la yiraahdaa sheegeen howlaheediina aan maamulaynin marka arrintan marka saas oo kale loo daraasanayo badanaa waxay dadka ka sheekeeyaan muhiimadda ay ururada bulshada rayidka ah ay leeyihiin ururada bulshada rayidka marka laga dhawaajinayo oo hadda cinwaankeenan uu xooggiis yahay waxay noqonaya sheegeen yaa rayd ah yaan rayd ahayn marka yaa rayd ah yaan rayd ahayn marka la yiraahdo qof kastoon dawladda ka mid ahayn waa rayd xitaa hadduu siyaasi yahay political society hadduu ku jiro xataa waa rayd laakiin marka la rabo oo kale yaa danaha bulshada gaarka ah matalaya marka la yiraahdo kale si aan u reebaynaa maxaa la yiraahdaa shirkadaha oo kale waa reebaynaa ganacsatada waa reebaynaa waxaa soo haraya marka ururada bulshada rayidka oo maxaa la yiraahdaa sheegan abaabul bulsho ku samaysmay oo danahoodu yihiin koox ama kooxo ka mid ah bulshada inay maxaa la yiraahdaa sheegan horumariyaan dantooda ilaaliyaan maxaa loogu baahan yahay su'aala imaanaysa marka ururada bulshada rayidka dawladda iyo maxaa la yiraahdaa sheegeen iyo ururada siyaasiga maadaama ay agaasiman yihiin ay abaabulan yihiin awoodooda si loo kontrolo bulshadu inay awood lahaato waay marka maadaama shakhsi aan awood lagu yeelan karin waa in iyadan organized inuu ahaado waa micnaha
siyaasaddu waa organized bulshadan waxaa la rabaa si ay siyaasadda u baaciso inay organized ay agaasinaato inay maxaa la yidhahda sheekeen maamulnaato marka waxaan kusoo gabagabaynaa dowladda markay dadka ka hadlayaan oo kale dowladda waxaa loo malayaa wax weyn oo khaariqul caadaha oo dadka ka baxsan dowladdu fiicnaanteeda iyo xumaanteeda waxay ku xiran tahay bulshada sababtoo ah dowladda annagaa soo saaran dowladda natiijo ka dhalanaysa waa micnaha bulshadu habkay u wada xiriirayaan dowladda samaynaysa haddii bulshada cadaalad darrada ay ku badan tahay nidaam darrada ay ku badan tahay qaanuun ilaalin la'aanta ay ku badan tahay oo kale dowladda bulshadaas ay soo saaraysana sawir ka mid ah waxay noqonayaan sawir yar oo bulshadii ka mid ah waa marka annaga haddaan nahay sheegeen guud dadka oo bulshada matalaya oo kale ama aqoonyahan ama arday ama dad wax barto oo kale haddii aan rabno in maxaa la yidhahda dowlad fiican inay noo dhalato oo kale haddaan rabno in isbeddelka bulshada in laga bilaabo waa yani marka bulshada qualitygeeda uu sare u kaco tayada dowladdana aaday sare ugu kacaysaa nin waxaa jira aqoonyahan caraba sheekhna ah oo la yidhahdo taariq suydaan oo kale wuxuu qabaa hadda lambar exactly lambarku sheegay isaga ma xasuustee wuxuu leeyahay bulshada haddii boqolkiiba 2 mise 4 meelahaas baan u malaynayaa hadday hagaagaan ay fiicnaadaan bulshadoo dhan way hagaagaysaa buu leeyahay marka isaga wuxuu bulshooyinka qaarkood oo maxaa la yidhahda sheegeen fashalka dib u dhaca ku jiray wuxuu aanaynayaa tiradii laga maarmaankeeda oo boqolkiiba 4 ahayd aan la la'yahay annaga Soomaali markaan nahay oo kale marka waxaa waaye in wacyiga bulshada ee guud tiro xooggan oo dad ah tiro maxaa la yidhahda awoodi karta macnaha macnaha waxaa laga wadaa keliya tiro la mid ah 2 ama 4 boqolkiiba ah xitaa hadday hagaagto yani ma waddanka dhan dowladda dhan dalka dhan hagaaga ay ka dhigan tahay yani saan u fahmay isaga saas u arkaa wuxuu leeyahay yani waxaan mashiin motor la rabaa waxaan wada mogtahay baabuurka fiiri baabuurta iyo maxaa la yidhahda gawaarida waxaa laga yaabaa baabuurka caadiga inuu yahay 5-6 tan inuu yahay laga yaabaa laakiin motor oo 1 tan ah inuu wax dhan kaxaynayo si wax marka 2 ilaa 4 boqolkiiba hadday hagaagaan oo isku toosaan inta kale oo bulshada ka mid ah way toosayaan marka inaan annaga saas u xasuusnaano haddii aan rabno dowlad fiican haddii aan rabno nidaam fiican in bulsho fiican inaan marka ugu horreysa abuurno aad iyo aad u mahadsantihi جزاك الله خيرا استاذ حسن aadan kaaga mahadcelinaynaa dhowr su'aalna waa ku weydiinayaa intaan ku sii weydiinayn waxaan dhowr su'aal u sii furayaa dadkana daawanayo haddii qof su'aal qaba uu ku jiro inayna soo weydiin karayaan qaybta su'aalaha hadda way u furan tahay qoraal ahaan inagu soo qori karayaan waxaan yani hadalladaada ugu dambeeya oo kale haddaan yani ku yar celiyo waxaa waye boqolkiiba 2 bulshada si qiyaado wanaagsan ay u hesho haddii la helo يعني 2% ama boqolkiiba 2 inay wax badan ay isbedeli karayaan dhanka waxaan inoo soo bilowday taariikh ahaan xilligii saxaabada xilligii taabiciinta xilligii dowladihii islaamka soo jiray oo dhan qaabkay ku soo dhismayeen ilaa aad inooga keentay dowladda nidaamka cusub ee hadda ama modern world-ga nidaamka casriga qaabka dowladuhu ay ku samaystaan iyo ku samaysmaan iyo afkaarkay ku dhisan yihiin marka ka aniga ahaan tusaalaan waxyaaba aan xoog saaro waxaa ka mid ah inta dhanka dowladda keliya ah wax badan la taageeri lahaa la dhihi lahaa yani dowladda sharciga saas waxaan jeclahay yani social work baan bartay ama adeega bulshadaan bartay masterka ka diyaariyay in qofka shakhsiga ah bulshada ah yani taban sida aad sheegtay inuu kaalatigiisa tayadiisa ay dhisnaatan waa wax meesha ku jiro laakiin uu noqon karo ka waran yani qof xuquuqdiisa dalban karo oo haddii dowladdu ay qalad samayso dhihi karayo waxaas waa ku qaladan tahay haddii dowladda ay wax saxa samaysan dhihi karo anigoo xasuusanay daban buuggaagi the narrow corridor aad khulaasada fiican ka samaysay anigoo xasuusanayo yani dhankaas qofka shakhsiga ah bulshada ka tirsan siduu u noqon karaa yani qof yani xuquuqdiisana dalban karo waajibaadkii laga rabo inuu kasoo bixi karo qaybtii ugu dambeysay waa iga go'day maana maqlin ها كلي waxaan iri maxaan ku yiraahdaa qofka bulshada ka mid ah oo rayidka ah yani wuxuu u baahan yahay in wacyigiisa rayidnimo inuu sareeyo marka oo wacyiga rayidkana markuu sareeyay kaliya ama qofka inuu dawladda taageeradeeda uu qof yani dawladdiisa markaas taagan ama xuquuqdii iyo social contract-ka kala dhaxay taageersan uu hado balse qaladaadka jirin uu qaban karo marka yani dhinacyadaas baan jeclaan lahaa inaad wax ka dhaxdo